islaamka intuunan imaanin ka hor nabi maxamedna ilaahay soo dirin adduunka gabdha waa joogeen dumar baa joogay hooyooyin ah ilma leh gabdha yar yar ayagoo ahna waa joogeen ayagoo waaweynna waa joogeen waxay ku noolaayeen xaalad xun oo xun bay ku noolaayeen xaaladda xun oo ay ku noolaayeen koow waxay ka bilaabanaysay yukrah wilaadatuha dhalmadeedaaba la nacahay inay gabadhi dhalato oo adduunka ku soo biirto ayaa la nici jiray oo la nimcaa haddii marka ay dhalato ilaahay baa abuuray oo keenay soo ma see loola dhaqmi jiray laba xaalo yeeli jiray ayumsikuhu calaa huunin am yadussuhu fi turaab waalidkii gabadhaa dhalay laba xaala mid baa u furan haddii adduunyada gabadhi ay ku soo biirtay ma wuxuu ku haystaa iyadoo dullaysan oo nolosha aan waxba ku lahayn oo ihaano iyo dulli ku sugan asaguna ku ceebaysan yahay miyuu ku haystaa mase carraduu ku duugaa iyadoo nool asagoo naftiisa kala cararaya ceeb iyo caar inuu ka soo gaaro ilaahay qur'aanka wuxuu ku sheegay haddii loogu bishaareeyo gabar baa kuu dhalatay walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiib wejigiisii waa isbeddelayaa carana way buuxinaysaa haddii meesha loogu sheegay rag uu la fadhiyo ceeb iyo caar darteed buu ka dhex cararaya raggii gurigii dhamma waa ka cararaya markaasuu go-aan wuxuu ku gaarayaa ayadoo nool oo gabadhiisii ilaahay ka soo gooyey ah inuu dilo oo duugo waida almaw'uudatu su'ilat biayi danbin qutilat way kaxayn jireen tan loo labiso oo la kaxeeyo godka lagu xabaalayo isagoo qodaya ciidda uu firdhinahayay dhabarkiisa ka tiraysaa mana oga inay tahay godkan ayada in loo qodahayo markaasuu saa ugu tuurahay aabbow ayadoo laho faraqa ku dhegan buu saa iskaga goynaya markaasuu ciidda ku xabaalaya haddaan qur'aanku inoo sheegi lahayn oo ilaahay inoo sheegi lahayn maba aanan rumaysaneen gabar nool baa aabbaheed oo arkayaa duugay maba aanan rumaysaneen sooma laakiin ilaahay baa qur'aanka inoogu sheegay gabdhuhu heerka inay soo mareen hadday ka badbaado dil oo ay noolaato waxay ku nooshahay fi dilla walmahaana dulli iyo mahaano ayay ku nooshahay nolosha waxba kuma leh laysa laha xadun fi lmiiraas dhaxalka markii la gaaro aabbaheed uu dhinto hadduu guryo badan iyo xoolo badan ka tegay hal shay kuma leh xaajo kasta iyo fakri kasta iyo baahi kasta ha hayso nidaamka shaqaynaya waagaas buu ahaa markaasaa xoolihii aabbaheed horteeda lagu qaybsanaya hal wiil hadduu ka tegay halka wiil baa qaadanaya 10 gabdhood hadduu ka tegay 10 kuwa waa qadaya gacmuhu waa isku saaran yihiin kama hadli karaan bal hiya mawruutha intaas kaliya maaha waxay ahayd gabadhu mid la dhaxlo oo ninkeeda laga dhaxlo sida ninka looga dhaxlo xoolaha uu ka dhintay oo mataacda iyo alaabtu ka dhintay sida looga dhaxlo ayada laftii loo dhaxli jiray oo hadduu ninkaani qabayn dhowr naagood oo uu dhinto gabadhan uu qabay oo ilmaha lahayd ma madax bannaana meesha rabtana iskama aadi karto waxaa dhaxlaya ninkaa dhintay dhaxalkiisa dadkii lahaba dhaxlaya ariga iyo geela la boorimaynayo la qaybsanaya ayadana lagu darahaya waa dhaxal isma dhaqaajin karto ayadaa la dhexlahay xoolihii aabbaheedna way ka qaatay
waxay ahaayeen mujtamacaadka jiray jaahiliyada hal nin baa waxa ku hoos noolaa 10 iyo ka badan dumar ah intuu raba ayuu guursanaya ayagoo ku nool nolosha midda ugu dambayso ciriiri ah oo wax xuquuq aan lahayn ayuu 10 15 20 ayuu qabaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadii rumaysay qaar ka mid ah ayagoo 10 wata yimaadeen markaasaa nabigu yidhi 4 ka doora sida inta kale shaqo kuma liid bal u fiirso mudaayaqaadka iyo ciriiriga iyo dhibka ay dareemayso 10 iyo 15 baa lala qabaa kulligoodna waa dhaxal hadduu dhinto qaraabadiisa dhaxalaysa ولذلك أبو عمر بن الخطاب وحو يرين والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا إلهي بان كل أرتد حلقي قال هذا أنا أهين هوينك وح قيمة وما أن أنت تريد ما أنا الهين حلقي قال هذا أنا أهين هل قيمة أمين الهين بير حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم إلى إلهي سودة شيء حق أيليهين قرآن كور رمية أنا قيبية إلهي وحي قيبية وحق ذا إلهي من الصعب وحتلا يوح مامولا من الله مجتمعات كقار كود ولا جوبي تشري قبرنا هذي قبر عدة كوسو قررته ضب على قبل سجر وحكي لسكده مجتمعات كقار كودنا انت اللي دوفيو الله كحيو السوقيده اللي جيو ayay iska iibin jireen qofkii ari raacsanahay iyo qofkii beera ku falanahay iyo qofkii wadanahayo mataqaan adoon ka dhiganahaya waa beec bay dhigi jireen saasay u kala duwanaa mujtamacaadku sidaas ayaa loo cadaabi jiray gabdhaha islaamku markuu yimid oo nabiyullaahi muhammad ilaahay soo saaray dulmigi dul saarna waa laga rigo مكانة إيا شرفت أيلاده هين إلهي بالقرآن كسودتشي حق يديبا إلهي سبحانه وتعالى قرآن ككريم ككسي مركز وحى إلهي وكدقي شريكة الرجل في الثواب والعقاب وسائر الحقوق إلا ما خص الله بهن مثل رجل لقى يبسطه ولو ذاكته هديتها حسناتك يا أجرك هديتها عقابتها هديتها حقوق دمانتك إلا وحياله جوني ده أو سي جوني إلهي يجوسيه معان مركز القرآن كإلهي وحي كل يهي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قف كي سمي عمل صالحة رأي الضمر كو دونها هذا وحولي هي حياة النلل وناكسن فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض مرنا بإلهي وحو أجيب إنو نديعهين قف عمل فلي عمل كيسة من ذكر أو أنثى قبر يويل كو دونها هذا حق يدي ميل بالوصار رجينا والله شيء أيجينا والله شيء إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات رجع مسلمين تا قبلها مسلمات قبلها مؤولش مؤمنين تا قبلها مؤمنات كوا الصومة رجع الصومة قبلها الصومة كوا مصدقين تا كوا صدقيستا قبلية ويل الوالد تح قبلني مركي ويل كل شيء قبلنا والله شيء حقوق حل السعلية وين عبادة السد والعبادة يستوي عبادة يسد قرآنكم برن ويبرن علمك وبرن ويبرن صلاة بدن بو تكن ويتكن صوم بدن بو صوم ويصوم صدقوا لبحين ويلبحين حجكوا آدن ويآدن ثوابتي يا أجرك يا حسناتك أيضا والله فرق سجن والله فرق هوانتي وحا كلا oo loo soo celiyay meeshii ay ahayd in la dhaxlo oo mataac iyo alaab ahaan loo dhaxlo waa la xarim
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلهي باير إذا ما بنانا مؤمنين إن الدمر كده حشام ما إذن بنانا إسكدا إن لا دحلاه إلهي وحو كدغاي مid ayadu wax dhaxlaysa xoolaha aabaheed ama walaalkeed ama qaraabadeeda dhaxal ilaahay ka siiyay inaan la dulmin karin للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر هيا هذا هبطناضو ويلكو قيب لي رجو قيب لي نحلك وحي قرابضو أي كتاجين قبلها إلهي بقى أشيغو ويلي زوج كيدي بيدحلي أبيهد بيدحلي المهي ده شيء بيدحلي قرابة إذا كلا هدي عيد كحكتاي تجري بيدحلي حقي دحلك وحا لقى دقا مدي أيدا الدحلي وحا إلهي كدقاي مدى أيدا وحا دحليس إلهي وحو كرامي سبحانه وتعالى قبضنا مسلمات دعا مركا أيرتهي أو صقيرتهي أي الله ماموس قول إلهي مركا سنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قبضوا قفكي كفالة قاضة أو تربية ذا هجاتية كنا له سترا من النار وحي أقول نقونا يا نار تحجاب أقول نقونا يا صدح قفكي كفالة قاضة لما قفكي كفالة قاضة هل قفكي كفالة قاضة وحقوق استاجي تربية ذا يا أخلاق ذا يا مسؤولية ذا مركز وحى الله ضمانة قاضي أو الله سينا يا ما دام قبر وحقد إلى لي أو شرفي أو قيميي أو تربيي إني حجاب أقول نقضى نارت بل فيري نارت حجاب أقول نقضى هم مركي يرتاح مركي نقطة قبر إنان أو عقل جدي يجور جارتي إسلام كوه أو إلى لي إن جور كده اللي هو هجاتيو أوقف أخلاق دي سيد دين تي سلجة رالي هاي لسيو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه قبل دي واحد اللي أبا مسؤول كأ ولا أبا مسؤول كأ أو هو مسؤول كأ صماها يا سينيسا هذي كوي مادام كوا أخلاق ده يدين تو ده أي كرالي جلس أو أكوكنا عديد أجوري قبل ده حلو إلى قبل مركب وحلو إلى إن الله دور جور مركي جارتو نين أخلاق له الدين له ظروفتي صدق على واحد دونتها ولو إلى مركي هو ينقطي أنت إن هو ينقل نكور جوري مركي تكتي أو جوري هو يد أي كسر بحري أيا نينكي وحال صار واجبات أي قبض عن كل هذا بيلكي عنا يعبتان أساق دوش الله صار جوري أي دقي لهيد أساق مسؤولية دي سال صار وحي أي حران لهيد أساق الله صار حقوق دي أو لما يستر ما دام أول هوي أبي مسؤول أي كأهايين زوجك أي كور يكتب مسؤولية دي الله صار شلا هذي أباك قادنا يسمعت زوج كذا كقاضي مركي أي إلهي أولاد وسيي أيها هويا أهان له احترام مركز النبي صلى الله عليه وسلم إلهي كسودتي قرآن كهض لي اللبد والد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لبدي والد إلى لبالي ساس على الأمر لبدي والد حقوق دودي وحل كسودتي ولا قال هض لي علمه مركز هو يدي سجونئة وحال ديريسيه حقوق صدح جير ابيه كوريس ايا لسي يا كوغو حق بدن ددك هويدا يا كو خيغه هويدا يا كو خيغه هويدا يا كو خيغه ابها عدوغي اسلامكuna maxay ahaayeen ayada nool biduugahayeen haddana waxa laga saran mariyay labadii waalid hooyadii ba xuquuqdeeda la badiyay waa markay hooyo noqoto ka sal lagu ogaado markay doqowday oo shayb noqotay
أيا سجوني القرآن كأقدر دار إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سيد الله قدر دار ما فيه مركز إلهي وحو أمري هدي الدقوبان لبدي والد وحويان كإلالي كلمة حن saxaradii baa ka qaadaysaa waa u qubaynaysaa waa dhaqaysaa wixii wasakhoodii baa dhibsanaysaa iska ilaali kelimad uf inaad tiraahdo oo waxa saxarada aad ka qaadaysay aad u muujiso inaad dhibsanaysid ha guulguulin ka ilaali waa markay shabaabka yihiin hadday adduunyada ka tageen ayaa laga sii dardaarmay waqul rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaani sagiira ilaahu u naxariiso labadaydii waalid sida ii barbaariyeen anoo yar ayagoo noolna ugu ducee ayagoo dhintana ugu ducee rabbi ighfir lii wa liwaalidayya naftaada markaa u ducaysid waalidkiiga ku xijis hooyadii marka waxaad arkaysaa in laga bilaabay markay dhalatay gabar markay noqotay loo guuriyey awlaad yeelatay awlaadii lala dardaarmay doqowday si gooniyo quraanka uga hadlay dhimatay لما موسى حقوق دي لو إلهي حاجة لقيه اللي كراتاس عن إسلام كأهين